السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة يا المركز جوكتان واحد نقدر ونسان الجزيرة الصومالي نيوز. أنا قلنا واحد هيدا عن شيء ملح. واحد ما تصوب وقرني نيوز صوماليات ومدة لبس سنة كحن سنة ماشي تمد عن المدرسة عندنا وعسبتال كويا له مقالة بفيدريكم ودن كان جمالك. بروح لنا إن عملين كان دور سؤال ويدينه. kadibna waxaan la joogay ehelkiisii oo iyaguna ka warbixin doona marka hore magacaawa Faisal baa lagu yiraahdaa waa hagaag goorma ayaa meesha tan lagu keenay ma garan karto dhaawac goortu uu ku gaaray dhaawacu ama dhaawacyada ka muuqda oo hadda sida aan u jeedno 2 sano meesha tan ku jirta gormay waxa kan ku gaareen gorma saaka lagu keenay ma xasuusata waa hagaag marka xaas iyo carruur ma leedahay gorma ugu dambeysay xaaska iyo carruurtaada inaad la hadasho goorfo waa hagaag daawadayaal dabcan ninkan su'aalahan weydiinayno kama jawaabi karo waa nin xanuunsan dhanka maskaxdana waxa ka gaaray dhaawac dhanka jirkana waxa ka gaaray dhaawac marka waxa warbixin waafiya ka bixin doona eheladiisii oo maanta soo booqday kullay iyaga warbixinta saxda ah dhiibi doona adoo magaca ku bilaabaya ninkan aan hadda aragno oo xagga dhimirka iyo xagga jirka labadaba dhaawac xun ka soo gaaray sida xog nala wadaag بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فايسل نينك اللي يرادو 2017 bishii August anigu maalintii hadda ma xusuusto oo dhulkana waa iska qurbo ayaa dhaawac gaaray dhaawacaasina wuxuu ku gaaray magaalada la yiraahdo ama tuula magaalada Kassel hoos tagta oo la yiraahdo Volfahagen saad warbixinta aan ku hayno dhakhaatiirtu noo sheegeen iyo askartu Faisal waxa gaaray dhaawacyo madaxa ka gaaray iyo qoodadka indhaha ayuu nin Soomaali ah ka gaarsiiyay oo qabiilka Isaaqa habar Yunuska raacaynaasha ah ayaa gaarsiiyay Faisal waqtigaas muddo kadib maalmo kadib wuxuu markuu ku jiray qalina badan oo waaweyn lagu sameeyay waxa loo soo bedelay isbitaalkan ku yaala oo dhimirka ah iyo dadka qaliinada xunxun ay ku dhacaan iyo dadka dhimirka beela iyo dadka laxaadkooda beela meel lagu xanaaneeyo oo lagu dhaqaaleeyo oo la yiraahdo Baadifildugen ayaa la keenay oo maanta meeshan aynu ku soo booqanay aynu kala hadlaynaa marka Faisal muddo 2 sano ayuu hadda halkan ku jiraa waxaan u malaynayaa bishii August aakhirkeedii miyaa la keenay mise September awalkeedii bay ahayd ma garanayo Faisal intaas waa hadda laga ku jira hadda waxa uu yiri mar dhow ay ugu dambeysay reerkiisii goor ugu dambeysay ma garanayo sanaduhu maaragtay ayuu ka soo maqan yahay lamana hadlin Faisal nin maanta maaragtay xoogiisa wax ku qabsanayana ma aha nin maaragtay maskaxdiisu ay joogtana ma aha nin wax kala garanayana ma aha waa kan aniga maaragtay kuma garanayo suuliga waa inagii hadda u wada jeednay saxarada ninka cadaankii ka bedelayay saxaradii baa meesha loogu sawiray maaragtay halka godka ku rid halka ku fadhiiso ayaa sawir loo siiyay sawirka aad u jeedaan waxa loogu dhajiyay bal inuu dhaqankii iyo islaamkii iyo kartuurkii iyo wixii uu ku soo barbaaray inuu ku xusuusta ayaa loogu dhajiyay way nagii hadda markaynu soo galeynay bal Soomaali kula hadlo Faisal inuu biyaha cabo cuntada cuno bal u sheega laynagu lahaa Faisal wax kala garanaya ma xaaladiisuna halkaas ay maraysaa waxayaan warka ku dheeraan Faisal wuxuu u baahan yahay maanta kolay dawlad baa gacanta ku haysa laakiin wuxuu u baahan yahay kiiskiisu dadku quseeyo intay Ilaahay ka baqaan in ay maaragtay xaqiisi iska bixiyaan oo ina duudsiin oo sida dhaqan inaga Soomaali halka waxayna dhigay nin qori ku taag iyo maaragtay ya halka dhigtay Soomaali intay Ilaahay ka baqaan ay ninka aad u jeedaan in maanta idin soo sawirayno
maaragtay idiin soo duubayna inay iska bixiyaan oo ilaahay kaga baqaan oo maaragtay ay iska bixiyaan xaqiisii bini-aadmiga xaqiisuna ma duudsimayo nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofku waa sacnimo iyo kama suulayo xadiid abu daawuud iyo keyrkiiba warinayaan ilaa dhiig xaqdarra uu galo maaragtay waa sacnimo kama suulayo laakiin hadduu dhiigga xaqdarra uu galo qof cidhiidhi iyo dayq iyo dhibaato ayuu ku noolaanaya marka waxaan leenahay walaalaheen habar yoonis waad u jeedaan walaalayaalow dad ehelaynu nahay dad soomaaliyaaba aynu nahay dad maaragtay carab iyo labadii daan baa isqoonsaday niman dhalinyaro baa isqoonsaday idinkuna inaydaan xumaanta aydan sii buunbuuninin oo maaragtay aada maanta garab baxdaan oo jid baa laydinku leeyahay oo dee ku daraysaa waxaan waxyaal baan ku darayaa oo tafaasiil oo yar Faisal waxyaalaha ku daraya waxaa kamid ah Faisal 2 jeer buu wuxuu galay qalliin tusaale ahaan Faisal meeshu qalliin ka galay waa madaxa iyo koodka buu qalliin ka galay waxyaalaha ku daraya waxaa kamid ah Faisal hadda alaan baa ku xidhan banaanka hadduu baxo guriga dhan baa isla kacay kateetar baa ku xidhan oo kaadidiisu ma taqaanaan waxa weeye control ma leh haddii uu kateetarka bacdu buuxsanto alaan baa qayb yahay kaada iska daadi garan maayo xafaayadiisu waa tama ma taqaanaa hata xafaayad baa meesha ka baxda xafaayad baa u xidhan oo ma taqaanaa aan tusayo Faisal waa kuwa xafaayadiisi waa kuwa حفايديس وقول المنطقة ووحي حفايديس واقع تلقى أجاجنا يوجيه ويحرم تعي وحتى وذاك يصير فيصل ويحرم تعي كتياتر كي ويحرم نسير نقاتلين تنوش شيئين نسير نقاتلين تنوش شيئين فيصل مسكح ويا منطقة أنا بيش ولا بركة جاري أنا هذا أنت الوان ورئيستي وسيجارن وديي وعندي فيصل ما قبل وضع مش كوجرت وحولي دور بلاد بان مش كوجرت حلي وفيصل ماشى كب حيو واللي ليه حلي قاسو فيصل كب مجنوب إلا أو كندتون فيصل أنت صراحان رجال لجمع قبصي قاتلوا تنوشيجين مسكحيس أنا هذا كل مرة ماشى كوسو بوضي وعندي فيصل وما دي كرنيسا إيه الباس وحبنا ما يقول ملك وما هاي حبا درسنا ما كان درهيو وحوية مدرهيو حدا سيدا أغنى هاي لبدي فاميلي نيكا ديلي يو نيكا وي وضع فديان إلهي كابقوا محلنا فيصل حالة ديسو حالة إنكرادا معه وحروح بين آدم أخر صدانا معها دا إسلام ما إنو نهي وحنا أروح دباقة باشي أسو جدينا يا نيكا وحسو قرسيسي إلهي أنت تكبق دان نينك المنطقة وحكا ما توا ننتهي أو نور إلهي من كل أرتنين أنت داملها نينك دياليسي حقوقي اللي ينكرها سكب هي أنا بعد نديرها ومتكاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم كل كروة يوا وضعين دون أنا ما أنت نينك فيصل صوب وضعي ehelkiisana waa ka mid ahay yokale ninka waa wareysanay waxaan weydiinay wax kaloo aan macquul ahayn loogu jawaabay yokale ninka dahrigiisi waa noolyahay laakiin ninka maankiisi iyo maskaxdiisi ma noola waayo nabarada culus ee ninkaasi gaadhsiiyay baa ninka aafa ku noqday ninkani dee nafti kama bixin oo ilaahay nafti kama qaadin laakiin xagga iyaga ma noola waxaanu leenahay warnimankii qoonta geystow rag wuxuu geysto waad garanaysaan waxna waad geysan jirteen waxna waa laydii geysan jiray ragguna waa ka wada xaali jiray war ninkaasi idinku dul yaalla ninkaasi idinka hawshiisa madaxa ku qaadanaya haddaad dad muslimiin aad tihiin haddaad tihiin dad Soomaaliyeed haddaad tihiin niman dhaqanka wax ka yaqaana iyo deriska iyo dadnimadu waxay tahay ninka qoontiisa iyo xaajadiisu waa dushiina war ninka tolkiisa la xaala wixii aad ku xaashaan oo waxaad wanaag ku dhamaysaan bay arrintaasi ku gees go'anta waxaan leenahay ninkaas oo aanu cadaynayna ninkaasi inuu xagga Ilaahay ka nooleeyo laakiin xagga iyaga uusan ka nooleen waayo ninka markay saxaradu qabato aan garanayn war saxara ku hayseen isku shagal
ninka markay kaadi qabato aan garanayn war kaadaha ku haysan isku shagal ninka markuu gaajoodo aan garanayn war cuntaa u baahnay hallaysiiyo ninka aan garanayn caruurtiisa magacyadiisa wargar baxa rag baa la idinka dhigo assalaamu calaykum waa mahadsantiin daawada soo galay musqushii waxaan waa saxaradii loo sawiray ma garanayo saxarada inay asagu Faysal ma garanayo saxara inay hayso waxa lagu sawiray inuu bal arko oo musqusha markuu halka soo istaago inuu mataqaanaa inuu dareemo waxaan saxara inay tahay xafaayadihiisina macnaheedu waa kuwan oo wada aragtaan marka qofka bini aadamka maskaxda weeye wuxuu qofka bini aadamka maskaxda weeye wuxuu mataqaanaa uu ka nool yahay Faysal hadduu gaajo qabato gaajo ku haysa dhihi maayo mataqaanaa cunto hal ay siya dhihi maayo cuntada markii la hoos dhigo say dhaqaatirintu noo sheegeen afka in loo geliyo mooyaan haddii hadda cunto la hoos dhigo ma cunayo oo mataqaanaa qaybta xasuusta ka maqan bini aadamkuna wuxuu ku nool yahay waa xasuusta marka Faysal waa qof nool hadda oo adduunka nala jooga oo Faysal hada tirada magaca Faysal buu ku dhigo inta buu ku dhaafin karo ilaahay dartii waan u hadlaynaa oo mataqaanaa hadda anigu nin islaam aan ahay oo ninkaas u hadli maayo mataqaanaa xaq darro iyo xooladodo iyo la raadin maaye waa wixii xaqiiqo ah oo ilaahayga xaq lagu caabudan ku dhaartay ogyahay way waxaan ka hadlayo marka Faysal waa nin maanta adduunka nala joogo nool laakiin nin rajal laga qabo ma aha